iyadoo guud ahaanba caalamka islaamka maanta laga tukaday salaada Ciidul Adha ee shacabweynaha ku dhaqan magaalada Wadweyne ee xarunta gobolka Daadmareer saaka isugu soo baxeen gudashada labada ragcadood ee Ciidul Adha dooxa weyn ee Shimbireley iyo waliba qaar kamid ah masaajidada waxaana shacabka dooxa Shimbireley halkaasi kula tukaday mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada ka hor tukashada labada ragcadood ee Ciidul Adha waxa halkaasi bulshada hadallo duco iyo dardaaran isugu jira uga soo jeediyay duqa degmada Wadweyne Cabdixakiin Nuur Muuse gudoomiye ku-xigeenka Daadmareer ahna kusimaha gudoomiyaha injineer Maxamed Cabdullaahi taliyaha qaybta iyo waliba isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Daadmareer waxaana hadalladoodii kamid ahaa sibadan ballaaran ee Ciidul Adha awgeed waxaan halkan hambaliyo ugu dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka iyo ciidamada qaranka kala duwan sanadkiisa ilaahay inuu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nabadgelyada ilaahayna siiyay inugu taam yeelo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ummadda Soomaaliland qulubtooda mideeyo khaasatan shacabka reer Wadweyne inuu ilaahay garasiiyo jidka toosan ee dariiqa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan salaamayaa dhammaan xukuumadda kala duwan ugu horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saydici iyo dhammaan saddexda gol qaran iyo saddexda xisbi qaran iyo afarta ciidan qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan leeyahay kulley annagu maamul baanu naho wax way qaldamayaan waana wax badan way naga dhacdhacayaan waxaan leeyahay maanta annaga hana la saamaxa maamul ahaan annagu waanu saamaxaynaa dadka oo kulli waxba uma qaadno maadaama aan nahay madaxdoodii laakiin waxaan leenahay dadka wax noo haya hana saamaxaan maanta ilaana saamaxdaa ma khaasatan idin codsan noqdo marka hore ilaahay ummadda muslimiinta ay soo iideen maanta iidid ajir iyo xasanaad ka siiyo islaamkana qulubtiisa Allah soo jeediyo Soomaaliland ilaahay qalbigeeda ha mideeyo inaynu hagaajisano danaheena iyo amnigeena iyo dhaqankeena inaga daniino ugu jirta haddii aan laga hagaajin guri waliba aan isagu soo fiirsano aanu waxa xun iska joojinin waxba inaga qaloocanaya taas waxaan leeyahay inuu wanaaga aynu wada jeesano taasaynu xasanaadna ku helaynaa wanaagna ku helaynaa isu taraxumaan ama isu naxariistaan oo wixii ay isku caawin karaan isku caawiyaan oo waxa weeyaan isu tahniyadeeyaan taqabbal Allahu minna wa minkum waxa weeyaan waa runtii waa maalin aad iyo aad runtii ugu qiimo badan xagga Alle farxad ayay waxa weeyaan runtii mudan tahay sida awgeedna waxa weeyaan walaalayaal in dadku ay ku dadaalaan khayrka ugu dambeyntiina bulshada oo isugu hambaliyeynaysa Ciid Mubaarak macal Ciidayn ayaa wajiyadooda laga dheehanayay dareen farxadeed iyo damaashaadka hambaliyada Muuse Salebaan Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Wadweyne.